xanuun aad iyo aad darna haysto marka walaalaha Soomaaliyeed waxa rabaa in hooyadeed ka warbixisa dhibaatada gabadha yar ee dareemayso dhow maamada maxaa ka warbixinay waxaan ka warbixinayaa Soomaaliya waxaan u caawinaysiin dad walaalo ah hadaan nahay gawra iga jirin aasaan iga taalo ina igu caawisiin meel baadiye aan ka nimid 6 bilood ay iga tahay daawo la'aan iga haysaa ina ii daawaysiin igu caawisiin aan u baahanahay goorma saan naqatay xanuunka 6 bilood ahaanay noqotay 6 bilood ka hor 6 bilood ka hor intee joogtay markaas meel baadiye aan joognay sax oo la dhahay dhagaxow shanlow meel la dhahay aan joognaa sax aan deganahay biyo go'doon nagu noqdeen biyihii adaan ka soo baxno xamar soo aadnay dad walaalahayna aan iska baryaynaa inay wax noo galaan oo gabadhan ii daaweeyaan aan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsaday in gabadhaadi ay ku daaweeyaan oo ii daaweeyaan aan ka codsaha sax walaalahay inay ii daaweeyaan oo iigu caawiyaan aan u baahanahay xanuunka haysto wax ma cuntaa wax ayada wax ma cuntaa oo yani si wax ku cuntaa ma cuntaa miskalaanta ma waa wax cuntaankeeda waa yar tahay sax wax yar ay maalintii cunay sax inta kale waa iska dhaafay waxa ay ku cuni kartaa malaha saanay ay u taalaa xanuunkan waa xanuun oo 6 bilood ka hor ku dhacay oo isbitaal iyo waxna lama geen dan jirta awgeed waxaan ku daaweysana ma haysano oo isbitaal ku geeyno oo meelan ku aadna ma haysano sax waxa wasalaad marka ummadda Soomaaliyeed ay hadan daawanayaan gabadha ay soo caawiyaan inay caawiyaan u baahanahay sax oo maadaama dhibaatadan aad iyo aad xanuunka badan haysto oo haysta inay naga caawiyaan oo isbitaal lagu geeyo oo isbitaal la geeyo la daaweeyo u baahanahay lacag ma rabi in la daaweeyo isbitaal la geeyo qof walba oo wax ka qaban kara inay wax ii qabtaan oo walaalahay ii qabtaan u baahanahay qof walba oo yani wax ku tari kara oo wax ku tari kara caawi kara awood u leh in maanta gabadhan yar nolosheeda badbaadiyo waa dareemi kartaa qofka markii wajigiisa waa ujeedaa wajigiisa waa tana indhaha wajiga waa tabaasan tahay sax aad iyo aad u jeedin waxay u baahan tahay $2 iyo $3 qof walba intuu awoodo uu sixin karaa laakiin waxa hal qof oo Soomaaliyeed walaal Soomaaliyeed ah oo maanta inuu isbitaal geeyo oo yani caawi maadaama dan yar maadaama maamadan yar iska tahay oo duruufaysan yihiin oo dhibaatooyin fara badan iska haysta oo mid kamid ah kaamka magaalada Muqdisho hadda aan ku soo boqday oo aniga maadaama media aan nahay wax kaliya aan awoodnay ay tahay inaan soo bandhigno dadka ay arkaan aad iyo aad dadkii wax u qabtaa u sheergareeyaan oo hadda wax awoodin u sheergareeyaan dadka qof walba wax awoodin waxa laga codsanaa inay sheergareeyaan maadaama qeyra ay hayso waa dareemi kartaa qof marka uu xanuun noocaas ah qof gabar 12 sano jir ah oo haysto ee hooyadan ag fadhiso waxa laga qaban karin oo tiri lacag la'aan darteed ayaa saan xaaladdan ay u tahay isbitaal ma geeysan inta ka isbitaal ma geeyin sax aad farmashi kaniin qalaji ma wax kale ma uu awoodiba maxaa codsalaad marka ugu dambeyn daawa codsalahay walaalahay inay ii daaweeyaan isbitaal ii geeyaan codsaha sax aad iyo aad daawadayaal walaalaha Soomaaliyeed adduunkan oo kaliya ayaa walaal u yahay qof walba oo yani maanta ka qayb qaadan kara gabadhaas yar nolosheeda in la badbaadiyo waxa loo qabto maadaama xataa badarka xataa ayaan cuni karin ee ku dhiban tahay waxa ay ku nooshaa oo kaliya waa biyo iyo caano iyo wixii lamid ah sida maamada ay sheegtay waxa loo baahan yahay qof walba inuu ka qayb qaato waxa loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliyeed inuu ka qayb qaato maadaama gabadhan aad iyo aad u xanuunsan tahay wajigeeda yani afkeeda xataa wax aata aan cuni karin waxa loo baahan yahay in isbitaal la geeyo waxa loo baahan qofkii awoodo maanta aakhira ajirka heli doontaa walaal Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo dhiban aan nahay aad iyo aad oo dhiban marka aragto maanta yawm qiyaama ayaad ajirka heli doontaa qof walba wuxuu aakhiriisa yani anfacaysa qof amal walba waxaan ku codsanaynaa walaalaha Soomaaliyeed aad iyo aad u qiiraysanahay oo dareemi kartaa marka xaalad noocan ah aad qof noocan aad la fariiso walaalaha Soomaaliyeed ee qeyrka jecel waxa ay ka codsanayaan in video ay sheergareeyaan kumanaan kun ayaa jirta hadda daawanayo oo lacag haysto laga yaabo in qaarkood bilyaneer yihiin waxa ay ka codsanayaan inay caabisaan oo dareemi kartaa qof danyar marka wajiga ama dhibaato noocan ah dib waa xanuun aan hore u arag qof lamid ah hore ugu arag laakiin waxa ay ka codsanayaan inaad soo caabisaan waa xanuun ila alla ku riday ayada mas'uuliyadin waa wax u qornaa marka walaalaha Soomaaliyeed waxa ay ka codsanayaan inaad ka qayb qaadataan isbitaalkiisan maadaama wajigeedii xitaa isbedelay xanuun daran haysto qof walba oo Soomaaliyeed wax ku tari karo qof walba oo daawanaya maanta wax ku tari karo adiga waxa sameyn kartaa oo kaliya dad wax ataa ku tari karin video waa share gareyn kartaa ummaddu share gareyn kartaa walaalaha Soomaaliyeed waxa ay ka codsanayaan inaad ka qayb qaadataan ugu dambeyn maxaa ku dar lahayd
hal iyo labo ugu dambeyn waxaan ku dari lahayn inay walaalahayna nu caawiyaan oo waxna siiyaan oo wixii awoodda ilaahay unti oo siiyay oo ilaahay nagu taraan aan u baahanahay aad iyo aad daawadayaal waa dareemi kartaa maamada sida u hadlaysa xiirada leh waa xanuun aad iyo aad u dareemayso xanuun aad iyo aad u daran ay dareemaysaa marka walaalaha Soomaaliyeed ee qeyrka jecel ee durdurmeeyay daamanay waxaa jiro yacni quraasho ardu abaaji daaleeri haddii aad isku dartaan intaas isku dartaan gabadha waxa laga yaabaa in nolosheeda wax weyn ay iska bedesho in isbitaal la geeyo la caabiyo maadaama wajigeedu aad iyo aad isku bedelay oo u jeedin waxaan ka codsanaa inaad la caabiyo waxa loo qabto dadka isbitaalada leh ee hadda daawanayo oo u kala kacsan tahay oo Muqdisho joogo looma baahdo qof dibadda joogo xitaa qof Muqdisho joogo isbitaal haysto wax walba haysto waxa sameyn karo looma baahdo qof dibadda ku sugan waxa loo baahan oo qofkaas uu caawin kara laakiin wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu lacag u soo diro isbitaalka anaa ka faal qaada oo dhaho inta lagu daaweynayo dareemi kara marka arrin noocaas ee jirto walaalaha Soomaaliyeed ee qeyrka jecel waxaan ku codsanaa inay video share gareysaan like gareysaan comment ka bixisaan qof walba fadhigiisa u geysaan waa maasantiin